السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسو دواد جنرال كا فندوح ميديا داود هذا نقول عصب تاي فضلا سبسكرايب صار جنرال كا قامبال كان فرصي أدوية شمو قالات هالكان أي نسوق للنو كسو دواد مقال عصب يدو مالي قدام بيه براه برشة قارهان يوتيوب كالسن الأحمرية هذا هين تكو أدن مقال عن شحوما ولغا سيدايي قبدا لغو مقعابو عيون قرحو كميدا قبدا سيداءات واستعمال براه برشة قارهان تيك توكا ayaa waxa arimahaasi si kulul uga hadashay fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayare. Farxiyo Kabayare oo kamid ah fanaaniinta ugu caansan hablaha Soomaaliyeed ayaa waxay sheegtay in aad uga xumaatay muuqaalka anshaxumada ah ee laga sii baahiyay gabadha lagu magacaabo Cayuun Quro, waxaana ay sheegtay in aad u cambaareynayso dadkii ka dambeeyay baahinta muuqaalkaasi foosho xun. Waxa ay sheegtay in ay aad uga xumaatay markii ay aragtay muuqaalkaasi, waxaana ay sheegtay ama fariin ay u dirtay gabdhaha da'da yar ee Soomaaliyeed oo ku aadan in ay is-asturaan. Fanaanada Farxiyo Kabayare waxay sheegtay in dhowr jeer oo hore ay dhacday in muuqaal sida laga sii baahiyo gabdho Soomaaliyeed oo ku aadan fadeexado ay ku jiraan markaasi, waxaana ay sheegtay in gabdhaha looga baahan yahay in arrimahaasi oo dhan cashar lama ilaawaana ay ka bartaan. Fanaanada caanka ah ee looga haray timaxidista Farxiyo Kabayare waxay sheegtay in loo baahan yahay in gabdhaha Soomaaliyeed aysan aaminin xitaa ragga qaba ama ay u dhaxaan, taasi ay ku sababaysay in raggu aysan aaminaadii ka baxeen, waxaana ay sheegtay intaasi ay tahay mid suuragal ah. Fanaanada Farxiyo Kabayare waxay sheegtay sidoo kale in ay haddii ay arki lahayd dadkii ka dambeeyay faafinta muuqaaladaasi ay cagta marin lahayd, balse waxay sheegtay in taasi aysan u suuroobeyn. Waxay ka hadashay sidoo kale hadalhaynta ku aadan in shakhsiyaad gaar ay ka dambeeyaan muuqaal baahintaas, waxaana ay sheegtay in ciddii ay ku cadaato ay codsanayso in maxkamad la soo taago lagana jaasiyo dembiga uu ka galay gabadha lagu magacaabo Cayuun Quro. Cayuun Quro ayaa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada YouTube-ka waxaa dhex wareegayay muuqaal la sheegay inay iyadu tahay oo laga soo duubay kaas oo muujinaya muuqaal anshaxuma, waxaana Farxiyo Kabayare ay mar kale dalab u dirtay gabdhaha da'da yar oo ku aadan in ay isdhowraan. waxaan idin iri waxaa la yidhi naagihii fiideo dirowgi waa iska socdaa fiideo ii soo dir baby war boyfriend iska dhaafee iska daaya, ma aragtay nin aad wax idinka dhexeeyaan fiideo aad ku aamintay iyo maaragtay naas dhinac ka soo jeeda aad u dirtay iyo iska dhaafe ku qaba isdhexda kugu qaba baby taraagan wadaaye bil iyo laban kaa maqnaahay ii soo dir sawir aad ma aragtay sootaana qabto bijaamo xiran tahay adoo ku yidhaa oo ba u dirtay kala soo qaad waa u dirtayba bili aadan waa in telefoonkiisa la isticmaalo laga qaato qof kala baxo ka sokow waaba waala kariyaa qofkan bili aadan ma waa waala kariyaa haddaba waa shaka warayso ka maqan oo Facebook story my wife ku soo qoro ama snap my wife ya ma waala kariyo bili aadan